kadib markii ay soo baxeen qodobadii rasmiga ah ee Soomaaliland kula heshiisay Soomaaliya intii uu socday shirkii ka dhacay dalka Djibouti oo uu ka mid yahay qodobkii isku socodka bulshada ee ay gudida Soomaaliland hore ugu sheegeen shacabka inay ka hor yimaadeen waxa ay soo tarayay dareenada taban ee dadka Soomaaliland ka bixinayeen qodobka cusub ee Djibouti soo bandhigtay gudida Soomaaliland u matalaysay wada hadalka Soomaaliya ee ka qabsoomay dalka Djibouti oo Muuse Biixi hogaaminayay ayaa ku guuldareystay inay ka jawaabaan dareenka shacabka isla markaana ka dhaadhiciyaan qodobka dareenka laga qabo marwa adna aadan Ismaaciil oo kamid ahayd xubnaha Soomaaliland ee shirka wada hadalka tagay ayaa hogaamiyay Muuse Biixi iyo xubnaha kale ee gudiduba isku qanciyeen inay noqotay shakhsiga kaliya ee laga rumaysan karo sharaxaad ay ka bixiyaan qodobada dambe ee Djibouti shaacisay taas oo keentay in goor dambe oo habeenimo ah marwa adna aadan ay la hadasho warbaahinta marwa adna aadan ayaa shacabka ugu baaqday inay isdejiyaan isla markaana u soo jeedisay inaanay didmo ka qaadin qodobada ku cusub heshiiska Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo ku dooday in markii horeba ay labada shacab isku gudbi jireen sidoo kale marwa adna aadan waxay faahfaahin ka bixisay qodobada kale ee lagu heshiiyay ee ka soo baxay shirkii Djibouti waxaana hadalkeeda ku bilowday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ina aadan Ismaaciil waxaan kala hadlayaa Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaamayaa dadkayga Soomaaliland meel kasta joogaan iyo dadka Soomaaliga ku hadla meel kasta joogaan ayaan salaamaya waxaan doonayaa inaan kelmad yar ka iraado shirkii toddobaadkii dhaweyd Djibouti lagu qabtay ee wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ay gogosha u fidisay Jamhuuriyadda Djibouti ugu horeyn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dawladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele gogoshii qurux badnayd sharafta badnayd ee uu noo fidiyay ee noo suura gelisay inaanu 4 maalmood si wanaagsan oo diiran aan wada hadalno oo bisraaxa aan wada hadalno oo muranno wax iska dhaadhicino aad buu ugu mahadsanyahay waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa oo aan ammaanaya wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Djibouti ee sida quruxda badan oo hogaaminaya shirka inuu dhexdhexaadinayay waxaan leeyahay ninka hooyadii nin bay dhashay waxaan arinta isu socodka ee waxyaabo wax la sii faaleynayo wax laga sheegayo isu socodka dalalku way jiraan ilaa maalintii dalkan aynu ku soo noqonay ee aynu dalkeena nabad ka dhalinay waxa inoo imanayay dad meel kasta doonaan ka yimaado Soomaaliya ka yimaada bay'ad mushtarku uu socdaa dukaamay ku leeyihiin dahablayaal bay ku leeyihiin meherado badan bay ku leeyihiin wax dhibaato ah ma geystaan iyagana looma geysto waxa jira sanad walba waxaan dhignaa bandhiga buugaagta Nuuraddiin Faarax waa kuma buugiisii buu keenay halkan qaar buu iibiyay buugaag kale oo dad kale qoreen buu sii iibsaday qorayaal kale ayaa ka yimid Soomaaliya gudoomiyaal jaamacadaha Soomaaliya ka yimid wax dibindaabiye ah iyo wax ceeba iyo wax dhibaato ah oo ay geysteen ma jirto dadku wuu isdhex socdaa ardaydeenu jaamacadaheena ay ka baxdaa xagaa way tagtaa xagaa way ka yimaadaan jaamacadeedan qaar badan baa ku jira Soomaaliya ka yimid wax dibindaabiye iyo wax dhibaato toona kama arko qaar shaqaalahayga qaar baa ku jira dadka bukeey cisbaalka jiifa waan ku daweynaa waa dadaan soo dhaweyno waa dad waayeelo waa caruur waa dad dhibaataysan xaq bay noogu leeyihiin waa waajib sida qofka Soomaaliland u daweyno baan iyagana u daweynaa wax dhibaato isu socodkaas ma jiro dhibaatada aan u aragnaa waxa weeye qofka ku talagala inuu socdaalka ku yimaado inuu dhibaato geysto ama ku keeno dibindaabiyo abuuro kama ogolin marka haddii koox ciyaartooy ay timaado oo lagu soo dhex qariyo Soomaaliland rabshadaha laga dhigo marka horeba ilan baarashuud ku soo daadan maayaan airport bay soo marayaan oo marka hore laga wada hadlaya oo waxay u imanayaan baa laga wada hadlaya marka ayaan babisal la isu ridin Soomaaliland inta ka weyn oo ka maskax wanaagsan saad u aragto dhibaatada baan nagu boo aragnaa marka waxaan horta ammaan kale aan u fidinaya mudanayaashii wasiiradii aanu israacnay Djibouti
doodii Djibouti aanu ka qayb galnay aad iyo aad baan u amaanaya wasiiradii aan wada soconay oon ku kalsoonahay kartidooda iyo hawlkarnimadooda iyo hadal yaqaanimadooda intaan meesha joognay waxaan ku qancay oon arkay oo aan aad iyo aad ugu farxay sidii aan wada jir ka aan u wada shaqaynaynay ee walba hogaamo wanaagsan la socdeen oo Zaciim gudoomiyaha guurtida mudane Saleebaan aadan iyo madaxweynihii oo madfaci weynaa oo noo joogay isaguna ahaa team dhan oo adag ayaanu ahayn oo suuro geliyay doodihii iyo wixii aanu dhibaato aragnayna aanu ka hadallo wixii aanu dan u aragnay Soomaaliland dan u aragnana inaanu difaacno marka waxaan leeyahay waxba yaanba bisla idin ridin Soomaaliland dayalka inooga maraxsamayso waxaad ogaataan Somaliland erkeeda diyaaradaha ka soo qaad diyaarada markay ka soo duusho dal badan bay soo dulmartaa kaba soo qaad diyaarada ka timaada London ka timaada markay Ingiriis ka soo kacdo Faransiiskay soo dulmartaa Talyankay soo dulmartaa waxay soo martaa Greega Masar bay soo dulmartaa Suudaan bay soo martaa Jubbay soo martaa Ethiopia soo martaa markaas ilmayna dulmartaa Soomaaliya si dulmartaa Kenya hadana u sii talowda intaas oo dal irkiisa markay dul marayso dalka ay dul marayso ayaan nabadgelyadeeda iyo hogaamideeda iyo dariiqay marayso dalka ayaa mas'uuliyad ka saarantay marka taan ka wada hadalay waxa weeye diyaaradaha cirka Somaliland iyo cirka Soomaaliya maraya mid walbaba inuu mas'uul ka ahaado oo aynu wada hogaamino way diyaarada dalkayga soo gasha ee Soomaaliya u sii socota waynaanu ka wada xidhiidna xaga ka imanaysa aniga dul maraysa ama fariisanaysa waa laga wada hadlaa oo aan ogaanaa oo say u fariisan lahayd iyo haadkii ka soo fariisan lahayd laga wada hadlaa marka guddi farsamo oo adigii anigaba inooga aqoon roon oo hogaaminta diyaaradaha ila millions baanta cirka maraya khabiir ku ah ayaa imanaya labadii wafdi ee Somaliland iyo Soomaaliya ka socday oo Djibouti dhexdhexaad u tahay iyo khabiirada ayaa wada hadlaya oo sida dalka kale loo kala hogaamiyo diyaaradaha dul maraya ayaa inaga loo kala hogaaminaya marka cirkeena Somaliland sidii markii Ingiriiska la joogay ama Turkiga la joogay looga heshiiyay ayaa heshiiskii la soo celinaya nidaamkiina waa laga wada hadlaya si aan nabadgelyo diyaaradaha ina dul maraya aan dhibaato u soo gaarin marka waa wax cilmiyeysan oo farsamadeysan tan kale ee deeqaha dalalku waxay xaq u leeyihiin cidii ay doonaan inay wax siiyaan dalkii Soomaaliya raba inuu deeq siiyo tashaqul kuma leeyin isaga u xora si isu siinayaan u kala qaadanayaan inta isu siinayaan sababta isu siinayaan nama khusayso laakiin waxaan khuseeya wixii loogu talagalay Somaliland hadii la soo marinayo Soomaaliya dima ogole waxaan u rabaa qaybteeda si sharaf leh oo waxa soo ku maamulada waayeel hortiisa aan loogu barxay sababtiina loo siiyay intana la siiyay muddada aan ku shaqaynayno wax aan ku qabanayno cid aan kula xisaabtamayno halkii lagu qaybinay aan goobjoog ahaan oo cidii waxna siinaysa Soomaaliya wixii deeqda waxay siinaysaa toos u siiso wixii Somaliland loogu talagalayna toos leeno siiyo ee aan la oran inta waxa la idinku soo dhiibay dalka kale taas hadii ay dalka deeqda bixinaya aanu diyaar u ahayn waxaan rahaysta hadii se wax noogu tala gasheen qaybtu waxay doontaa ahaatee hana loo siiyo si toosa aan u joogno uga wada hadallo oo aanu xaadir ahaano meesha Soomaaliland magaceeda lagu soo qaadayo xaq baan u leenahay qaramada midoobe xaq baan ugu leenahay hay'adaha samafalka iyo deeq bixiyayaasha xaq baan ugu leenahay taawintaanu leenahay aan goob joog ahaan tan kale nabadgelyada badda inaga dhaxaysa waxa jira maxaan ku wax nabadgelyada wax yeelaya waa laga wada hadlaya meelaha sida waxa la iska kaashanayo iyo wixii u gaara wadan walba isaga u gaara ayaa laga wada hadlaya xuduudaha inaan isu soo dhaafay
waxyaalaha inaan iskaga xadgudbaynin sida aynu howlaha wixii ina wada saameeyo uga soo wada horjeesanayno duufaan baa jira waxaa jira maxaan ku raayay imka ayax baa ina wada saameeyay waa la iska kaashadaa iskaashi dalalka jaarka inay iskaashadaan waa waajib waanaanu soo dhawaynaynaa markaa hooye waxaan leeyahay waxba yaaba basilaydin ridin Somaliland gacmo adag bay ku jirtaa naga lumi mayso meel naga tegi mayso waynu wada ilaashanaynaa waxaanaynu baranaynaa asluubta iyo nidaamka dal la aqoonsan yahay baan noqonaynaa beri dhow marka waa inaynu baranaa inaynu buuqan iyo waxan iyo murankan iyo faaladan iyo waxyaabo badan oo dam inoogu jirin inaynu horta ka yara waantoobno oo aynu miisaano hadalkeena miisaano waxa aynu gelinayno YouTube-ka gelinayno iyo faalada aynu dhiibayno waa inaanay noqon mid waxtar u noqonaysa cadowga Soomaaliya ka soo jeeda